Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Daawadayaasha iyo dhegeystayaasha qiimaha iyo qadarinta mudan ee daafaha dunida inagala socda. Halkani waa Somali Voice in Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway. Waxaana weli bartanka kaga jirnaa barnaamijyadeena imtixaanaha ahaa ee aan idinkugu talagalnay bisha barakaysan ee Ramadaan. Waxaan maanta ciwaanka barnaamijkeena uu noqon doonaa maxaa u bannaan qofka sooman oo aan soonkiisa waxba u dhimayn oo aan jibinaynin. Waxaan si faahfaahsan qaybihii hore uga soo hadalnay waxyaabaha ka reeban qofka sooman ee jibin kara soonkiisa maalinta Ramadaan. Waxaan hadda u gudbaynaa qaybaha ama arrimaha u bannaan qofka sooman oo aan soonkiisa burinaynin ama aan ka jibinaynin oo aan wax dhibaataa u geysanaynin, walow dadka qaar ay aaminsan yihiin in soonkoodu ka waxyeelay karo. Candhuufta ayaa u bannaan qofka sooman in uu laqo maalinta soon ee uu sooman yahay. Ha yeeshee waxaa ka reeban oo fiican oo fadli badan inuu iska tufo xaaqada oo uusan liqin. Waxaa kaloo u bannaan qofka sooman macjuunka ama daawada cadayga inuu ku cadaysto maalinta Ramadaan. Ha yeeshee waxaa ka reeban oo muhiim ah in uusan liqin macjuunka ama daawada cadayga. Si taa lamid a qofka sooman waxaa u bannaan inuu qabaysan karo maalinta Ramadaan labada gelin oo wax dhibaato ah oo uu soonkiisa u geysan karo ma jiro. Si taa lamid a qofka sooman waxaa u bannaan inuu dhadhamin karo cuntada uu karinayo, kuleelkeeda, qabowgeeda iyo isku dheelitirnaanteeda. Ha yeeshee waxaa ka reeban in uu cuntadaasi laqo. Si taa lamid a gabadha sooman waxaa u bannaan in ay cilaanka saari karto, huruudda saari karto oo ay isqurxin karto, maadaama waxa ay saaranayso ama ay marsanayso ay yihiin wax jirka korkiisa ku eg. Si taa lamid a waxaa u bannaan qofka sooman ama lamaanayaasha sooman ee isqaba in ay hab isa siiyaan oo ay isdhunkadaan oo ay isku soo dhowaadaan haddii ay naftooda ka adag yihiin oo ay xakameyn karaan oo ay xaalado kala geli karin. Halkani waa Somali Voice in Norway oo alaaba idiin soo gudbi doona barnaamijyo imtixaana oo maalinle ah, kuwa oo ku saabsan bisha barakaysan ee Ramadaan. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا اللهم آمين. waxaa idiin soo gudbinaya anigoo ah Cabdulaahi Nuur Xasan Shiine.